madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu maanta ku qaabilay xafiiskiisa wakiilka gaarka ah ee midowga Yurub u qaabilsan Geeska Afrika mudane Alex Randos iyo safiirka u matala midowga Yurub Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Nicholas Berlanga waxayna ka wada hadleen kaalinta midowga Yurub uu ka qaato dawlad dhisidda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga horumarinta dhaqaalaha shaqo abuurka iyo taageerada ay midowga Yurub ku bixiyaan sidii loo hagaajin lahaa wax weyn looga qaban lahaa hay'adaha garsoorka iyo kuwa ka shaqeeya sareynta sharciga waxay kaloo ka wada hadleen arrimaha deyn cafinta oo runtii midowga Yurub oo kaalin mug la ka qaato waxaa sidoo kale la isla soo qaaday oo aad loo falanqeeyay arrimaha gobolka guud ahaan ka taagan haddii ay ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga sidaan ognahayna midowga Yurub waxay kaalin la taaban kara ka qaataan howlaha hortabinta u leh dawlad dhisidda Soomaaliya midowga Yurub wuxuu taageero ballaaran ku bixiyaa arrimaha amniga Soomaaliya oo ugu horeeyaan dhismaha ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM waxaa kale oo dhaqaale ilaa 100 milyan oo euro ah ee Yurub ilaa 2020 ku bixinaysa sidii taageero toos ah oo maaliyadeed loo siin lahaa dawladda federaalka Soomaaliya